xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaradka ah wadani mudane booba yuusuf dacaalo maanta warfidiyeenada kula hadlayay xarunta dhexe xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa ka hadlay shirkadda eegista tayada baabuurta ee taala dekada magaalada Berbera kaas oo ay dhawaan xukuumadda Soomaaliland soo dhigtay dekada magaalada Berbera isla markaasna la sheegay in lagu eegayo gaadiidka soo degaya xogayaha oo arrimahaas ka hadlay waxa hadaladiisa kamid ahaa war saxaafadeed kooban oo ku saabsan mashruucan dabinka noqday ee oo expiroyinkii ee la yiri waxa lagu eegayaa tayada lagu ilaalinayaa tayada baabuurta xukuumaddeena fadhiidkay taay keentaabatii kala ka daran indheena qaawanayeen ku aragnaan in baabuurta dalka timaaday ee socotaaba ahayn baabuur iyagoo cusub la soo iibsaday albaabada wadada xiga ee basaska ayaa markhaati cad u ah isteerinkan dhinaca guraan ku yaal ayaa markhaati kala ah ma xaaladaynu iska jeclaanay ee waa mid ka dhalatay burburkii dagaaladii dib u xoreeyeen indheena ayaynu ku aragnaa oo ku garan karnaa waan hubaa inaynu indhaha dadweynaha sida ugu aragno balse waxaanan hubin in aynu xukuumaddeena isku indhanahay tuunku meel kale kama iman ee xukuumaddeena dadkeed moog danteed raac mishiinay iyo Pakistaaniyiin ay u soo kireystay si ay u imtixaanto tayada baabuurta soo degta oo $80 oo aan geedna loogu soo gaban laga qaado hay'adda xilkan gudanaysa ama bareysna oo sharci ay ku dhisan tahay ma jiro golaha wakiilada ma ay soo marin dhismaheeda laba naadin oo tartan xalaal ah oo xaliiban ama transparent looma gelin goor madow ayaa meel madow lagu bixiyay waxa loo badinayaa in loo xidhay dad loo roon yahay oo lagu naasnuujinayo dheecaanka wadatada baabuurta dalka ka hawlgasha hawada liidatee waxaan muran ku jirin inay ugu liidato inta xukuumaddu wadata oo mararka ay ku agmarayaan aad moodo in kooxdii durduraagtaada ka tumayso bal kororsiimooyinkan aan garowshiyaha ahayn eega 2010kii Toyota waxa lagu cashuuri jiray 1400 maanta waa 3400 maartu waxa $750 maantana waa $1550 Suzuki 950 maantana waa $1900 haddana guray waa warramaya guulna waa akhriya aan ku soo xidhatado aan ka soo amaanaystay maansada dhunkaal ee timacade waxaan u yiri sida nimankan wada dhoofayeen dhidibka oo leeynin ama aanu dhalan beerlada uga dhameysteen Soomaalinimadii waxay dhaafsadeen baan la dheegay timacade bariga Soomaalinimadii oo la iibsaday ayuu ka hadlayay waxaan la yaabanahay Soomaalilandii waxay xukuumadda maanta jirtaa dhaafsatay ee ay dadka u dhibayso